بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabnaa inaan marka hore sheegno waraaqihii aan usbuuc walba qori jirnay midii af ingiriisiga ahayd kaliya soo baxday. waxaa la dhihi karaa marka midaas markaad adiga isweydiisid oo tiraahdid war alla ilaahay waraaqdan waan ka maqsuuday matri ilaan taas waxaad ku heli kartaa boqolkiiba kulmani. sababta ugu wacan waxaa qoraalkan wuxuu ugu dhashay inaan diyaariyo maalmihii ugu dambeeyay 2 maalin iyo meel laga joogo 3 maalin meel laga joogo. marka qoraalkan wuxuu ku fiican yahay marka intaad qortid daabacdid saxsaxdid muddooyinka gedisan kuna qortid saxsaxdid dakhla maaragtay hawlahaas ku fiican 2 maalin ugu yaraan ilaa 5 maalin ayuu ku macaan yahay. markaas waxaa soo bixi kara wax oo yani runtii aad dhehaysid waa ka maqsuud taama aysan dhicin. marka waxaan isasiinaynaa boqolkiiba boqol isma siinayna 9 meelahaas ayaan isasiinay walow xataa dib aan uga soo dhici karno oo 85 meelahaas. marka usbuuca dambe hawlahaas inaan galno inta ku jirto laakiin waxaan rabaa inaan meesha ka sheegno qorshaheenu insha Allah ma ahayn usbuucan inaan wax qoraal samayno. waxaa la dhihi karaa marka haddii arrintu sidaas tahay maxaaba maaragtay aad hore ugu sii sheegaysay oo dadku ogaan waayeen. runtiina waan rabay inaan sidaas samayno aanan samaynin taas. marka waxaan samaynay sababta waxaan u malaynayaa 9 aan isaga dhigay 85 aan isaga dhigay ayaan u malaynaya inay tahay. marka waxay u baahnayd in laga yimaado dadaal laga yimaado warkaas la sheego. waxaa la yidhi ama afeef xero laho ama adkaysi dambe laho. marka afeef meesha kamid walow niyadeeda ay ku jirtay oo macnaha dhaqanka aan rabno inaan horumarino ah inaan sii sheegno waxaan qabanayna bacdina aan qabano. taas waa midda ingiriisiga waraaqda ingiriisiga waa badin lahaa oo mishi arrimo kale fara badan oo rabay inaan ka hadlaa jirta arrintii ciidamada Ethiopia oo la socdo kuwa dowladda oo baylaha soo kale ku biiritaanka xarakada shabaabka iyo alqaacida iyo diiditaanka ay diideen in maaragtay shisheeyaha iska saaraan arrimaha abaaraha waxaa xooga saaran in Soomaaliya sida isugu qalbi xaari lahaa mushkilada dalka jirtana qaab siyaasi loo dhamayn lahaa doorashooyin waxaas loo abuuri lahaa sida hargeysa hadda ka jirta waxyaaba noocaas laga hadla ayadana waqti inta badan umaanayn iyo beesha caalamku wixii sidii khaladaadan muuqano laakiin taasan tusnay oo beesha caalamka khaladaadan dareemayna inay socdo haddaan la sixina dhibaatooyin fara badan dhalin kara ayagana taas waxay noqonaysaa jihaadkeena iyo juhdiga iyo dadaalka maalmaha iyo isbuucyada soo socda haddii ilaah weyn yiraahdo. marka qoraalkii Soomaaliya saasaan loo qorin usbuuca dambe haddana si afeefanaynaaye oo ku aadan 18 bisha iyo usbuuca ku xiga oo ku aadan 9 ayaan rajaynayaa bisha Maarso. labadaba insha Allah waa yaraynaynaa qoraaladii waxaan ka dhigaynaa half page midka Soomaaliga midka Ingiriisiga. waxayna noqonaysaa voluntary haddaan awoodi karin kaliya soo saarina waayo waxaan rabnaa xoog inaan isugu geyno soo saaritaanka CD-ga ama DVD-ga soo bixi doono Maarso 8 iyo qoraal yar haddii ugu badato oo la socdo kaas oo kusoo koobi doono siyaabaha iyo waxyaabaha qofku ugu fiican yahay oo maaragtay sida uu maaragtay kharashaad uga heli karo iyo sida waxyaabahaasi uu maaragtay qaran uga suubin karo bulshada. aniga waxaan moodaa inaan ahay dadka oo dhegleeda ah oo markii ay indhahoodu aysan mashquulsanayn si fiican u fikir. marka taa qoraalkii ahayd tan videoyaasha waa ku kalsoonahay boqolkiiba boqol aad u fiicnaayeen si fiicana warkooda u dhacay ingiriisiga iyo Soomaaliga labadaba. kuwaas marka waxaa isku ammaanaya inaan wax fiican aan kasoo saaray waxayna ka dhacday wacyigelintii iyo inaanan lagu degdegaynin waqti aan cadaadis nama haysanin oo ah inaan si dhaqso ah ku sameeyo inaan ingiriisiga Soomaaliga wada soo saaray. marka intaasaan rabay inaan sheego usbuuca dambe waxyaabahan isku dayi doono waxaa kamid markii aan qoraalkan CD waxaan dhameynay haddii aan waqti u helno labadaba in labo arrimood lagu darsado qorshe mid ah markii aan dareemayno inaan wax rabno inaan qorno inaan sameyno markaas ay noqoto marka aan shabakadaha iyo waxaas muuqanayno iyo in qoraallo tayballo iyo maaragtay miisas inta la sameeyo waxyaabaha dalka ka dhacaya oo lagu ururiyay waxyaabaha meesha ka socda loo arko iyo waxa ugu fiican oo lagu jawaabi karo iyo waxa ugu fiican oo la qaban karo iyo sida hawluhu u socdaan si qoto dheer in loo fahmo. dowrkaas aan bulshada ugu jirnaa kulay xilligan ku meel gaarka ah waa isbedeli kartaa mustaqbalka soo socda haddii lagu fahmo ay sameyn rajaynayaan noqdaan. marka arrimahaas ayaan rabay inaan sheego aad iyo aad u mahadsantihiin.